madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ku joogay hawlo shaqo maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxa uu guryahooda ku booqday qaar ka mid ah mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo xilal kala duwan soo qabtay kuwaas oo qaar ka mid ah ay ku xanuunsanayaan magaalada Nairobi. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ugu horeyntii waxa gurigiisa uu ku booqday madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo uu ka xog waraystay caafimaadkiisa iyo waliba siyaasadda guud ee Soomaaliya halka ay marayso. madaxweynaha ayaa booqashadiisa waxa uu sheegay inuu doonayo in uu kaga warhayo mas'uuliyiintii xilal hore uga soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya si uu xaaladooda uga warhayo. sidoo kale waxa halkaas ka hadlay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi oo isaguna uga mahad celiyay booqashada uu madaxweynuhu ku tagay. dhanka kalena madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu gurigiisa ku booqday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo isaguna ku xanuunsanaya magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. madaxweynaha dowladda Puntland oo wada dadaalada uu doonay inuu kaga warhayo dadka xilalka muhiimka ah ka soo qabtay Soomaaliya ee xilligan ku nool qurbaha gaar ahaan magaalada Nairobi caafimaadkooda ayaa waxa uu madaxweynuhu sidoo kale uu ka xog waraystay caafimaadka ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo isaguna xanuuno la daaladhacay maalmihii ugu dambeeyay balse hadda ka soo kabanaya. waxa uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax uu sheegay hadda inuu caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay isla markaasina uu uga mahad celinayo madaxweynaha dowladda Puntland booqashadiisa uu ku soo booqday. wakiilka dowladda Puntland ee dalka Kenya Maxamed Axmed Fagelade ayaa waxa uu ka warramay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirarka Nairobi madaxweynaha iyo waliba booqashada uu ugu tagay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed. madaxweynuhu wuxuu la kulmay beesha caalamka safaaradeeda kala duwan safiirada kala duwan kulamadeena wax ku soo gabagaboobay si sharaf leh iyo karaamo waana soo dhamaadeen marka hawshaas wanaagsan buu dhacday sheeno. madaxweynuhu wuxuu booqday madaxweynaha hore Puntland Maxamed Cabdi Xaashi gurigiisa oo si sharfay inuu tago ay soo sheekaystaan soo kaftameen shaah soo wada cabeen. wuxuu kala booqday Prime Minister hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo isagana gurigiisa ugu tagay la soo kaftamay shaah la soo cabay. runtiina waa xurmo uu siiyay dadkii ka horeeyay oo dalka wax soo qabtay marka arintaasna si sharaf iyo karaamo leh ku soo gabagabowday iyaduna. Maxamed Shiine, Puntland TV, Nairobi.